بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. الحمد لله. إلهي baa mahadle walaalayaal na soo gaarsiiyey bishii barakada laheeday oo bilaha ugu fadliga badneeday oo ramadaan aheeday, bishii aheeday shahrullaahi, bishii ilaahay aheeday oo markaasi dadka muslimiinta u ah fursad weyn oo qaaliya oo sanadkiiba mar soo marta. taasaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa. waxaana leenahay bisha ramadaan ay soo dhowaaw ayaanu leenahay, waxaana ku soo dhoweyhaynaa farxad iyo raynrayn ayaanu ku soo dhoweyhaynaa. waxaa dhici karta dad badan oo bishii horeo ramadaan joogay inaysan maanta noolayn oo aysan fursadan aysan cumrigoodu u saamixin inay soo gaaraan. dadka waxaa weeye bishaan oo sanadka hijriyada ay tahay 1437 soo gaaray, ay markaasi faa'iido weyn ay u tahay. waxaanu leenahay bisha ramadaanay soo dhowaaw. bishaan haddii alla yidhaahdo waxaan uga faa'iidaysan doonaa duruus oo markaasi mutataabica oo israac raacsan oo la yidhaahdo duruus ramadaaniya la dhaho. waxay noo socon doontaa haddii alla yidhaahdo bisha 30keeda ayay noo soconaysaa, annagoo inshaa allahu tacaala ku soo qaadan doona bisha cadadkeedu inta uu la eg yahay 30 maalmood oo ramadaan uu haatan nooga bilaabanayo ilaa uu ka dhammaado. maalin walba munaasabada ay leedahay ayaanu maaragtay duruustaas ramadaaniyada aynu ku soo qaadan doonaa. waxaana ilaahay ka rajayhaynaa annagoo ilaahay muxtasibiin ogahoo ilaahay ajriga dalbayna, dadka muslimiinta ah caalamka meel kastoy ka joogaan inay ayaguna nala dhegaystaan oo ay ka faa'iidaystaan ayaanu maaragtay ilaahay ka rajayhaynaa. iyo bishaan barakaysan khayrka ku jira oo aan la soo koobi karin in ilaahay naga waafajiyo. maxaa yeele bishaanu inaan la ogaa karin waxa ku sugan oo wax caqliga basharka ka weyn ay tahay, oo keliyaba hataa waxaa weeye bacdi ayada ka mida falaa'isha lagu helaayo rabbulciza mooyaane cid kale aysan fahmi karin. sida haddii alla yidhaahda duruusteenna soo socota inshaa allahu tacaala noogu imaan doonta. waa tii rasuulkeenu uu dhahay calayhi salaatu wasalaam: low taclamu ummatii maa fii ramadaan latamanad an takuuna sanatu kulluhaa ramadaan. ummaddayda hadday ogaa laheeday waxa bisha ramadaan ku jira oo falaa'il ah oo khayraad ah, waxay jeclaa lahaayeen oy tamani lahaayeen bisha ramadaan dhammaanteedba inay weligeed iska jirto oo sanadka dhammaantiisba inuu ramadaan iska ahaado. hadda waxaa laga yaabaa bacli annaga naga mida markii bisha ramadaan la soo gaaro inuu cabsi oo muujiyo ama culays uu ku dhaco oo is yidhaahda bishaan ramadaan baa timide saad u soomi doontaa, xaggeed wax ka keeni doontaa ou isleeyahay. qofkaas marka qof niyadiisu niyo qaasira ay tahay oo danigiisu uu xun yahay weeye. allah subxaanahu wa tacaala xadiiska xadiisulqudsiga ah waa tou dhahay: anaa cinda danni cabdii bi, aniga addoonkayga mayhiisa agtiisa ayaan ahay. oo macnaha waxaa weeye addoonkaygu waxuu iga malaysto ayaan siinayaa. haddii niyo weyn aad bishaan la timaado oo aad ku qaabisho oo aad markaasi istiraahdo wax kasta oo waxa weeye cusriya bishaan bay kaaga harayaan
oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga qaadayaa wax kastoo derajaad ah, wax kastoo maqaamaad ah, wax kastoo xawaa'ij ah bishaa ramadaan ayaad ku helaysaa barakadeeda hadduu qofku is yidhaahdo ee si farxad leh uu ku qaabilo. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeelayaa dannigiisaas wanaagsan. laakiin danni xun haddii waxaa weeye qofku uu ku qaabilo, dannigaas ayaa loo ahaysiinayaa. marka waxaa la rabaa inaan ilaahay danni wanaagsan aan u samayno oo rugniga kan weyn oo arkaanulislaam ka mida oo 5 ah inaan maaragtay ku gudanno sidii ilaahay uu talagalay, si farxad leh aanu ku soo dhoweyno oo aan markaasi soo dhoweyno bishatan farxadna aanu ku soo dhoweyno. marka ay naga tegaysane aan dhahno waanu ka xunnahayo ramadaanay inaad naga baxda waa ka murugsannahay, sida asxaabtii nabigeenna iyo dadkii ahlullaahidaahi ay dhihi jireen bisha ramadaan, inaan sidaas nidhaahdo ayaanu kaga baahan yahay. fursad kasta oo waxa weeye naga maqneeday oo waxa weeye iyo xaajo kasta oo naga cusleeday, sida insha allahu tacaala duruusteena aanu ku qaadan doono, waxaanu maaragtay ku helaynaa bishaan barakaysan oo ramadaan ayaanu ku helaynaa. marka hadda waxa weeye darsigeenaan ugu horeeya waxaanu ku soo qaadanaynaa fardiyatu soomi ramadaan, bisha ramadaan in la soomo faral inay tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa ummatulmuxameda ilaahay uu ku faral yeelay ayaanu maaragtay ku soo qaadanaynaa. waa marka darsigeenni koobaad ayaa sidaas ahaanaya. marka hadda intaanan waxaa weeye duruustaas aanan gelin bisha ramadaan wax yar oo markaasi ku tacalluqaaya oo wax yaroo ka horeeya ayaanu wax ka soo qaadanaynaa. markii hadda la yidhaahdo siyaam markii la dhaho wuxuu iska leeyahay luqo iyo sharci buu iska leeyahay. xagga luqada waxaa la yidhaahdaa waa iska muطlaqu اlimsaak, wax uun laga af haystaa la yidhaahdaa. maxaa yeele luqada markii la yidhaahdo soom oo bimacna alimsaaka qur-aanka ayaa laga helayaa. maryamo binti cimraan nebiyullaahi ciisa hooyadiisa markii waxaa weeye nabi ciise ay dhashay oo ilaahay uu ku tacliimiye dadka u imaanaya inay ku tiraahdo anigu waxaa weeye inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya dheh, saas ayaa la yidhi. oo anigu waxaa weeye allah raxmaankaa waxaa ugu nadray soomkaas macnihiisu waxaa weeye imsaaq weeye, imsaaq can ilkalaam weeye markaas. ee hadda soomkan hadda aynu meeshaan ka gelayna ma ahan, waa soom lugawiya. falan ukalima alyowma insiya, marka soomkaas oo xaggaasa waxaa la yidhaha luqada xaggeeda waa macnaha imsaaq uu ku yimaadaa. soonka hadda waxaa weeye noo dhashay oo aanu soomaynane waxaa weeye markaasi asagu waa kii sharciga ahay weeye, oo alimsaaku can ilmufdiraat. soonka sharciga waa midka haatan aynu gelayno, waxaa la yidhaha in laga af haysto waxyaabaha mufdiraadka hoo soonka jebiya. haddii insha allahu tacaala waxa soonka jebiya duruusteena anay ka mid ahaa doontaa. ilaa quruubi min alfajri ilaa quruubi shamsi, aw min duluuci alfajri ilaa quruubi shamsi. waxaa weeye fajarka saadiqa ah oo salaadu ay ku dhalanayso laga bilaabo ilaa markaasi waxaa weeye maalintaas qoraxdeedu ay ka dhacayso, biniyati makhsuusatin weeye, niyo makhsuusaa ayadoo markaasi ay jirto maalintaas. waxaa weeye waan ku tegi doonaaho maalin walba markaasi in la niyeyso soonka ayaa la doonayaa, oo niyadaas makhsuusada ah ayadoo lagu soomaayo ayay waxay tahay laga bilaabo waktigiisa fajarka saadiqa ah ilaa markaasi waxaa weeye qoraxdu ay ka dhacdo. hadda waxaa weeye ramadaan goormaa la farad yeelay. ramadaan waxaa weeye horta marka ugu horeysa wuxuu ka mid yahay bishan oo la soomo. soonku sida hadda aayadda qur-aanka aynu ku soo qaadanayno oo ilaahay noo sheegi doono, waxaa weeye soomku wuxuu ka mid yahay sharaa'icdii qadiimka ahayd uu ka mid yahay. huwa min asharaa'ici alqadiimati, sharaa'icda horeysa uu ka mid yahay. ummadii hore waa soomi jireen, laakiin xagga kayfiyada waanu ku kala duwannahay. marka annaga bisha ramadaan inaanu soonno kayfiyadaana aan u soonno wax annaga ummatulmuxameda nagu khaasa weeye. marka waxaa la faral yeelay sanadkii labaad oo hijriyada
ayaa la farad yeelay bishii shacbaan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam 13 sano markii maka uu joogay oo kufaarta uu digaayey oo waxa weeye dacwada u sheegaayey shirkiga uga digaayey oo ay soo degaayeen suuradihii makiga ahay intaas markii la kari waayey ilaahay rasuulkiisa waxa u idmay inuu madiine u hijroodo madiine markii uu tegey sanadkii labaad oo hijriyada markii la joogo ayaa la farad yeelay soonka la farad yeelay sidaas ayaana maaragtay raajax marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta oo alle uu nagu farad yeelay oo inaanu samayno cibaada ilaahay uu noo jideeyey waxa weeye wax masaalixdeennu ay ku jirto waxaa laga yaabaa dadka bacdigood inay u arkaan soomku inuu naftooda dhibaato ku yahayo shay nafta lagu jarribaayo dhibkeeda inuu yahay maahan arrintu sidaas maahan wax kasta oo ilaahay noo jideeyey oo ilaahay noo xalaaleeyey oo markaa haddana takaaliifna loo kaga dhigay oo nala saaray waxay noqonayaan waxyaabo markaasi annaga maslaxadeennu ay ku jirto haddii aynu wax ka soo qaadanno qabla intaanan duruusta dhex gelin bisha ramadaan oo la soomo ama soomu ramadaan xigmada loo jideeya maxay tahay haddii la yidhaahdo waxaanu ka soo qaadanaynaa bacdi ka mid a xigmada soonka waxaa ka mid a sixatuljismi jirka ayaa ku caafimaadaya waad aragteen hadda caafimaadku nolosha qaaliga ahoo xayawaanku ku nool yahay midda ugu horaysa weeye mar haddii aan caafimaad qofku uusan haysanin noloshiisu wax qiimaa kuma fadhido marka midda ugu horaysa oo soonka laga helaayo waxa weeye waa sixatuljismi jirku inuu ku caafimaado waxaa markaas laga helayaa soonka kasru shahwa waxaa laga helayaa kasru nafsi wa shahawaad nafta in la jebiyo oo kibirka iyo isla weyninka laga jebiyo iyo shahwada in la jebiyo ayaa waxa weeye xigmada soonka ka mid a wa qahri shaydaanka la qahro ayaa ka mid a maxaa yeele shaydaanku ummadda waxuu ku yahay cadowgeedu waaye ilaahay waa taw dhahay ina shaydaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwa qofku haddii waxa weeye amarka ilaahay uu fartoomo oo cibaado kasta uu sameeyo oo ramadaankii hadda maaragtay aanu haatan joogno oo bishii ramadaan aanu soomayno soon aanu la imaanayno soonkaas waxa weeye shaydaanka waa qahraya waa dulaynayaa maxaa yeele shaydaanku wuxuu jecel yahay insaanka waxuu markaasi ku halaajiyo oo macaasi ugu rido oo waxa weeye beri qiyaamo waxa weeye uu halaajiyo naarta ugu rido ayuu doonayaa qofku marka haddii uu soomo shaydaankii markaasi niyo xumaa ku dhacaysa qof shaydaankii qahray oo ka xoog badiyey oo ka awood badiyey ayuu noqonayaa waxaa kaloo xigmada ka mid a soonka diibulfami cinda allaahi tacaala qofka waxa weeye afkiisu inuu dhiib noqdo oo afkiisu uu wanaagsanaado xadiis waxaanu ku degi doonaa uu leeyahay walakhafuufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixilmiski qofka soonkaa xayaabada ama dacarta afkiisa fuulaysa waxay ka caraf badan tahay ilaahay agtiisa riixda miskiga wax carfo wax ugu caraf badan weeye ilaahay agtiisa saasay ka caraf badan tahay oo markii waxa weeye dadku ay riixdaasu ay sankooda ku dhacdo way kahanayaan laakiin ilaahay agtiisa riixulmiski ayay ka caraf badan tahay marka waxa weeye afkiisi cuntadii markii uu ka soomo cabitaanka uu ka soomo kalaamkii markaasi faaxishkaahi uu ka soomo waxa weeye afkiisi baa dhiib noqonaya oo af oo wanaagsanaado ayuu noqonayaa maxaa yeele sidaas ayaa waxaa weeye xadiiskaas ku soo arooray soonka xigmada loo soomaayo iyo faa'iidadiisa waxaa ka mid a safaa'u lqalbi qofka qalbigiisa saafi u noqonaya waxyaabihii xumaay xaqdigii iyo xasadkii amraasha oo qalbiyada ah waa uu ka mid yahay xasadku uu ka mid yahay xaqdigu uu ka mid yahay waxyaabo badan oo dulliyaad ay ka mid yihiin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa u ka tiraya markaas waxaa weeye qalbi saafiya ayuu yeelanayaa qofka saa'imka waxaa soonka markaa faa'iidadiisa ka mid a
ama xikmada loo soomaayo gufraanu dunuub dembigaa lagu dhaafaya waxa weeye qofka markaasi bisha ramadaan soomaayo xadiis waxaanu ku tegi doonaa maaragtay wadabuhu makfuurun qofka waxa weeye saa'imkaa dembigiisu makfuur waayo waa loo dhaafaya dembi dhaaf ayuu ka helayaa wuxuu ka helayaa oo kaleentood cadiimu lajri ajir weyn ayuu ka helayaa ajirka ramadaanka laga helaayo sidaanu duruuseenna ku qaadanayno wax la soo koobi kara maaha maxaa yeele xadiis waxaan qaadan doonaa kulu camal ibni aadam lah ila soom fa inahu lii wa ana ajzii bihi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiisulqudsa u dhihi doonaa waxaa laga helayaa soonka oo xikmada loo soomaayo ay ka mid tahay ama faa'iidadiisa culuwulmansilati fi laakhirati aakhiro waxaa weeye derajo saro inuu qofku uu gaaro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soonkaas aclaa faraadiisi ljinaan jannooyinka midda ugu sarrayso oo jannaatulfirdows ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu geliyo qofka saa'imkaa wuxuu haddana helayaa alinsaafu biwasfi lmalaa'ika inuu ku sifoobo sifada malaa'igtu ay ku sifowday malaa'igtu waxa weeye wax ma cunaan waxna ma cabaan waxna markaa shahwana ma gutaan qofka marka hadduu saa'im yaho maanta sooman yahay waxna ma cunaayo waxna cabi maayo waxna jimaaci maayo macnaha wuxuu ka tegayaa qofku shahwatu lbadni wa shahwatu lfarji labadaas wuu ka tegayaa marka labadaas markuu ka tago wuxuu yeelanayaa sifadii malaa'igta ayuu yeelanayaa marka waxaad noqonaysaa markaad saa'im tahay qof ku sifoobay sifada malaa'igta ku sifoobay ayaad noqonaysaa waxaa laga helayaa markaasi alqurbu min allaahi jala sha'nuhu aw jala wacalaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo dhowaado ilaahay raxmaddiisa loo dhowaado ixsaanka markaasi la sameeyo kuwa u waaweyn oo soonku ka mid yahay haddana bisha ramadaan ixsaan badan ayaa layska doonayaa in dadka fuqarada iyo masaakiinta loo sameeyo oo ixsaanku ou ziyaado uu noqdo axaadiista soo socota ayaanu ku qaadan doonaa marka waxa weeye waxaa qofkaanu noqonayaa qof markaasi waxa weeye alqurbu min allaahi jala sha'nuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala qof u dhowaaday ixsaanka ugu dhowaaday allana waa tow dhahay ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin ilaahay raxmaddiisu waxay u dhowdahay dadka muxsiniinta ah hadda marka iyadoo mar walba ilaahay raxmaddiisu dadka muxsiniinta ay u dhowdahay ayaa haddana si khaasa bishaan ramadaan raxmadda ilaahay dadka muxsiniinta ay u dhowdahay bishaan ramadaan waa bishii 3 qaybood ilaahay uu ka dhigay oo alla rasuulkan uu dhahay calayhi salaatu wasalaam ramadaanu awaluhu raxma wa awsaduhu makfira wa aakhiruhu cidqu min annaar ramadaan waxa weeye awalkiisu waxa weeye raxmad weeye raxmad macnaha raxmadda mar walba ilaahay raxmaddiisa waa la helaa laakiin raxmad oo khaas ah oo gaar ahaaneed ayaa waxaa la helayaa bishaan ramadaanka laakiin yaa helaaya waxaa helaya dadka saa'imiinta dadka ilaahay amarkiisa qaatay dadkaas ayaa ilaahay raxmaddiisa helaya midka isagoo soomi kara aan soomayn ama kaafirka ah ama munaafiqa ah ama waxa weeye maaragtay aan fiicnayn oo caasiga ah oo bisha ramadaan aan soomaynin raxmaddaas waa dhinac maraysaa hadday ilaahay raxmaddiisu hadday ku gebto ama ay ku gefto maxaa markaasi faa'iidaad haysataa qof khasaare baad noqonaysaa markii raxmaddaas la helo bisha awalkeeda la helo bisha awsadkeeda 10 markaasi dhexane waxaa la helayaa makfira min cindi illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay agtiisa dembi dhaaf laga helo qofkii hadduu raxmad helay raxmaddii waxaa ka dhashay makfiraa ka dhashay dembigiyaa loo dhaafay hadda qof dembi ilaahay u dhaafay xaggee tegayaa aakhirkiina midda 10 ugu dambaysa wa aakhiruhu cidqu min annaar u dha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ramadaanka aakhirkiisana naarta ayaa la iska xuraynayaa qofkii markaasuu bishii ramadaan wuxuu noqday qof ilaahay raxmaddiisa haleelay qof ilaahay dembiga u dhaafay qof ilaahay xureeyey intaas ayuu maaragtay bisha ramadaan uu ka helayaa bil kale oo intaas laga helaya ma jirto marka hadda bishaan haddii la yidhaahdo bishaan yaa soomaaye yaanse soomayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa caddeeyey aayadda qur-aanka oo suuratulbaqara ku jirta
oo ka hadlaysa bisha ramadaan in markaasi soonkeedu farad uu yahay. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kamaa kutiba calى aladiina min qablikum lacalakum tattaquuna ayaama macduudaat. bishaan dadka soomaayay ilaahaa tilmaamay, waxaa ilaahay ugu naadiyey sifatu liimaan. maxaa yeele marka ilaahay uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka ilaahay iyo rasuuligiisa rumeeyeenow, kutiba calaykum الصiyaamu soon ayaa laydinku farad yeelay. naadadaas xigmad weynaa ku jirta, waa meel lagu kala haraayo. macnaha allah subxaanahu watacaala cid kastay sooma ma dhihin yaa ayuha naasu lama dhihin. yaa ayuha naasu markii la yidhaahdo sida qaalibkaa waxay ku dhacaysaa muslim iyo kaafiray ku dhacaysaa. marka hadda ramadaanka waxa loogu naadinaayo oo amarka ilaahay qaadanaya waa dadka iimaanka leh. haddii aad aragto qof aan soomaynin oo hadda markaasi macduur aanan ahaynin, waa qof ilaahay naadadiisa ka baxay, qof aan iimaankii lagu naadinayey aan ku jirin ayuu qofkaasu noqonayaa. maxaa yeele adiga markaad wax u baahan tahay ama aad wax farayso howl in la qabto, aad marka amar ka bixinayso, hawshaas wixii markaasi ku shuqul leh oo haddaad adigu amar bixiso amarkaaga qaadanaya ayaad ugu yeeraysaa. marka hadda amarka ilaahay yaa qaadanaya? waxaa qaadanaya dadka mu'miniintaa qaadanaya. qofkii markaa soomi waaya qof iimaan leh ayuusan ahaynin oo amarka ilaahay aan qaadanayn, marka naadadii dadkii wanaagsanay oo iimaanka loogu naadinayo ayuu banaanka ka joogaa. ilaahay markuu dadkaa baraarujiyey ayuu macnaha ilan aayadaha qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu markii la yidhaahdo waxa weeye amar ayaa ku xigaaya ama nahyi baa ku xigmaaya, wax kale kuma xigaan. qur-aanka aayad kasta fiiri yaa ayuha aladiina aamanuu haddaad tiraahid amar ayaa ku soo qaabilaaya ama nahyi baa ku soo qaabilaaya. maxaa yeele dadka mu'miniinta ayaa ilaahayna fariintiisa qaata, waxa uu ka reebana ka hara, ee dadka kaleentood waxay ilaahay faranimada hortoomayaan, wixii allah uu ka reebana kama harayaan. markii dadkii loo naadiyey muminiin dhagaha ay taageen, ilaahay markaas wuxuu dhahay kutiba calaykum الصiyaamu soom ayaa laydinku farad yeelay. kutiba bimacnaa furida calaykum wey, soon ayaa laydinku farad yeelay. hadda soonka annaga gooni naguma ahan haddaan nahay ummatu maxamed, kamaa kutiba calى aladiina min qablikum u ilaahi, sidii dadka adinka idinka horreeyey loogu farad yeelay ayaa laydinku farad yeelay lacalakum tattaquun, inaad cabsataan. maxaa yeele soonku waxa uu dhalinayaa ilaahay taqwadiisa. qofku haddii waxa weeye uu soomo wax badan ayuu ka dhowrsanayaa, haddana waxaa laysfarayaa in soonka ay taqwa ka dhalanayso, cabsida ilaahay baa ka dhalanaysa. hadda marka waxa weeye soonku wax mar walba taagan maaha. sanadkii waxa weeye waa 12 bilood, hal bil oo kamida ayaa ilaahay ramadaan inaanu soonno ayaa ilaahay nagu farad yeelay. inta kalena waxa weeye markaasi aan adduunyadeenna aanu qabsanno oon wax cunno oon wax cabno ayaa markaasaa ilaahay noo baneeyey. markaasaa ilaahay wuxuu dhahay ayaaman macduudaatin ou ilaahay maalmo oo tirsan oo qalaa'il ah. maxaa yeele ayaam hadda masalan ba haddii la yidhaahdo hadda bil dhammaan la soomaayaa bil miyaa yar haddii la yidhaahdo waa ay yartahaa la leeyahay. sanadka intiisa kale ilaa sanadkii 12 bilood weeye, haddii waxa weeye hal bilna laka faray inaanu soonno waxaa la leeyahay markaasi dee waa ayaaman macduudaad, ayaamo oo qalaa'il ah waayo aad iyo aad u yar. marka sidaas ayaa waxa weeye ilaahay dadka mu'miniinta wuxuu ugu naadiyey bisha ramadaan inay soomaan, oo waxa weeye soonkaasuna uu farad yahay. soonku waxa weeye rugnun min arkaani اlislaam weeye, arkaanta nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahay buniya alislaamu calىa 5 shahaadati an laa ilaaha ilah ilah waxaji lbeyti man istaa ilay sabiila. qof kastoo oo muslim oo arkaanu islaam waa yaqaanaa. marka waxaa la gudanayaa oo aanu gudanaynaa bishatan rugni oo arkaanu islaam ka mida. haddana rugni markaasi camalkiisu daa'imaayo maahano waxa weeye sanadkii hal mar ayaa markaasaa
rugnigaasaa lala imaanaya salaadoo kale ma ahan 24 saacba 5 jeer ayaa salaada la dukanayaa shahaadateyinkana hadde qofku hadduu kaafir ahay hal mar uu ku dhawaaqaya hadduu muslimnimo ku dhashana hadde waaba muslimoo shahaado la dhihi maayo marka sidaas ayaa waxa weeye bisha ramadaan ay u tahay faral u tahay faa'iidadaas ay leedahay waxaanu marka ku socon doonaa duruusteena ramadaanada darsigii koowaad kaas uu yahay inaanu qayb aanu soo qaadano waxaanu hadda markaas sii socon doonaa qayb kale oo markaasi fardiyatu soomi ramadaan iyo fadaa'ilshiisa laakiin darsigeena koowaad oo kamid ahay duruusteena ramadaaniyada intaas ayuu noogu eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi